Assalaamu calaykum. Filimkan waxa uu ku bilaabanayaa markii uu adduunka ku soo dhacay dhagax aad u weyn kaasoo sababay dhimasho kumanaan qof ah. Inkastoo ay dhammaan dowladaha caalamku isku dayeen inay ka hortagaan, laakiinse ma suurtagelin. Shilkaasna waxa uu sababayaa dhammaan noolayaashii yaryaraa ee ku noolaa adduunka inay isku beddelaan bahalo dadcun ah, kuwaasoo xajmi ahaan ka weyn sidii caadiga ahaa, waxaana weerar ku soo qaadayaan qof kasta oo bini'aadam ah. Waxaana dhimanaya 95 dadkii adduunka ku noolaa. Intii yareed ee soo hadhayna waxa ay bilaabayaan inay dhulka hoostiisa ku noolaadaan. Waxaana arkaynaa mid ka mid ah dadkaas oo lagu magacaabo Joel, waxaana tan iyo yaraantiisii ku noolaa godkan isaga oo kook ama cunto kariye u ah dadka la nool. Waxaan ogaanaynaa inuusan ku faraxsanin cunto karinta, uuna si qarsoodi ah u tababarto maalin walba. Maalin isagoo godka dhexdiisa ku tababaranaya waxa uu dareemayaa inay wax khaldan yihiin. Waxa uuna arkayaa dhammaan dadku inay isku diyaarinayaan weerarka, isaguna marka uu isku dayo inuu isku diyaariyo waxaa loo sheegayaa inuu isagu sii kariyo cuntada calashan si marka ay u soo noqdaan aysan ugu dhiman baahi. Isla markaana waxa uu dhankiisa dambe ka dareemayaa inay wax khaldan yihiin ama wax ka dhaqaaqayaan. Marka uu soo jeestana waxa uu arkayaa makhluuq aad u weyn kaasoo taagan xaggiisa dambe. Marka uu isku dayo inuu dilana cabsi awgeed wuu awoodi weynayaa inuu dilo, waxaana ka soo gaaraya asxaabtiisa. Halkaasna waxay ku dileen makhluuqii. Intaas kadibna Joel waxa uu dareemayaa ceeb, waxa uuna raadiyaha kala hadlayaa gacalisadiisa taasoo ku nooleed xero kale oo ay dad badbaadi ku nool yihiin. Waxa uuna xasuusanayaa markii ugu dambeysay ee ay kala tegayeen iyo sida ay ku kala tegeen. Intaas kadibna waxa uu tiimkiisa la wadaagaya qorshihiisa ah inuu rabo inuu iskaga tago xarunta ama Kolombiyada ay ku nool yihiin. Intaas kadibna waxaan arkaynaa Joel inuu diyaarsanayo boorsiyadiisa, waxa uuna soo qaadanaya hubkiisa. Ugu dambeynna waxaan arkaynaa dhammaan tiimku inay macasalaameynayaan. Ugu dambeyntii Joel waxa uu soo baxayaa bannaanka markii ugu horreysay ee noloshiisa, isagu ma yaqaano meel uu ka baxo. Inkasta uu qarrad haysto, waxa uu marar badan u soo noqonayaa isla jidkii uu soo maray. Ugu dambeyntii waxa uu ka soo tagayaa xarunta, waxa uuna soo gaadhayaa guri dadkii ku noolaa dhammaan xayawaanadu ay laayeen. Laakiinse marka uu guriga beertiisa u soo baxo, waxa uu beerta ku dhex arkaya kaas oo ku jira biyaha dhexdiisa, kaasoo ah raha aad u weyn. Waxa uuna weerar ku soo qaadaya Joel. Halkaasna Joel waxa ku badbaadinaya ay kaasoo mulkiilaha beerta iska lahaa uu lahaa. Joelna waxa uu ka soo cararaya meesha, waxa uuna ku soo dhuumanaya gaari kaasoo sidoo guriga oo kale u samaysan, kaasoo ay ku yaalaan waxyaalo badan. Waxaan arkaynaa in qofka iska lahaa aygan uu meesha ku noolaan jiray. Ugu dambeyntiina ay dileen makhluuqyada. Joel waxa uu qaadayaa maro guduudan taasoo u dhoweyd, laakiinse ayga ayaa si dhaqsi ah uga dafaya. Waxaan ogaanaynaa in mulkiilihiisu iska lahaa. Habeennimadii Joelkaas ayuuna u hooyanayaa, waxaana la jooga aygii kaasoo ay noqdeen saaxiibo dhow. Intaas kadib subaxdii markii la gaaro, Joel waxa uu rabay inuu iskaga tago goobta, laakiin waxaa soo daba kacaya ayga. Joel waxa uu isku dayaa inuu in badan mashquuliyo ayga, laakiinse aygu waxaan arkaynaa inuusan rabin inuu ka tago Joel. Ugu dambeyntii Joel waxa uu la noqonayaa saaxiib cusub, waxa uuna noqonayaa saaxiibkiisa cusub, waxa uuna ku wehelinayaa safarkiisa. Joel waxa haystay gaajo saayida taasoo ku kalifaysa inuu wax walba oo hortiisa ku arko uu cuno. Waxa uuna isku dayaa inuu cuno midho, laakiinse waxaa ka celinaya ayga. Kadibna waxaan iska arkaynaa inay midhahan sumaysan yihiin, waxayna iskaga soo tagayaan goobta. Intii ay dhexda ku soo jireenna Joel waxa uu ku dhacayaa god halkaas ay ku nool yihiin xasharaadyo. Godka dhexdiisana waxa uu ku dareemayaa inay wax kula dhex jiraan. Intaas kadibna waxaan ku arkaynaa godka dhexdiisa inuu ka soo baxay xayawaano, kuwaasoo weerar ku soo qaadaya Joel. Waxaana ka soo gaaraya gabar yar taasoo lagu magacaabo Mino iyo nin da' ah kaasoo lagu magacaabo Dotun, waxayna caawinayaan iyaga oo xadhig u soo tuuraya. Kadib waxa Joel lagu mahadcelinaya caawinada ay caawiyeen. Intaas kadibna waxa uu imaanaya Joel. Kooxdu waxay iska sii wadanayaan safarkooda. Waxaana arkaynaa Dotun inuu hubinayo wax walba inay caadi yihiin. Isla markaana waxaan arkaynaa John in tababaraysa gabadha yar ee Mino si uu u badbaadiyo naftiisa. Waxaana tababaraysa Mino si uu u badbaadiyo naftiisa. Inta ay dhexda ku sii jireen Dotun waxa uu arkayaa in makhluuq weyni daba socdo. Dotun waxa uu Joel u sheegayaa inuusan samayn wax dhaqdhaqaaq ah, waxaana si tartiib ah uga siibayaa dharkii uu makhluuqu soo carfsanayay. Halkaas Dotun waxa uu ku badbaadinayaa noloshiisa isagoo u sheegaya inuu iska taxadaro marka xigta. Habeennimadii waxaan arkaynaa in Joel iyo Dotun ay hurdo ka soo dhici weysay, halka gabadha yareed ee Mino ay iska seexatay, waxayna bilaabayaan inay sheekaystaan. Subaxnimadii waxaan arkaynaa in uu Joel weli tababaranayo, yacni calashan Mino ay tababarayso. Mino waxay u sheegaysaa in intan ku filan tahay. Kadibna waxa ay ka tagayaan goobta, waxayna soo qaadanayaan waqtiyo adag. Kadib waxaan arkaynaa in ay hadda kala tegayaan ayaga oo mid walba uu dantiisa raacanayo. Mino waa ay iska oynaysaa, laakiinse waxaa dejinaya Joel. Halkaas ayayna isku macasalaameynayaan. Joel waxa uu sii wadan doonaa safarkiisa markan isagoo keligiis ah. Waxaan halkaas ku arkaynaa inay ku kala tageen Joel, Mino iyo Dotun. Waxa uuna soo xasuusanayaa sidii ay gacalisadiisu uga fogaatay, inuu haddana qof walba uga fogaanayo, isagoo soo xasuusanaya waqtiyadii quruxda badnaa ee uu la soo qaatay gacalisadiisa. Intaas kadib Joel waxa uu weynayaa aygiisa, waxa uuna ka raadinayaa meel walba. Ugu dambeyntii waxa uu arkayaa isagoo ku jira meel god ah, waxayna u muuqataa inuu ka cabsanayo wax aad u weyn. Inta uusan wax fahmin waxa goobta imaanaya mid ka mid ah xasharaadyada isbedelay, isaguna waxa uu isku diyaarinayaa weerar celis calashan si haddii uu soo weeraro isaguna iskaga celiyo. Joel waxa uu lagu tuuraya dhulka maadaama uu la dagaalami karin makhluuqan aadka u weyn. Waxa uuna soo xasuusanayaa sidii ay xasharaadku u dileen waalidiintiis. Halkaas ayuu dhiirigelin ka helayaa isaga oo ugu dhamaynaya bahalkii. Joel iyo saaxiibkiisna mar kale ayay ka badbaadayaan halista. Habeennimadii waxaa soo da'aya roob aad u xoog badan. Joelna waxa uu raadsanayaa meel
meel uu ku dhunto isla markaasna waxa uu soo gelayaa guri ka mid ah guryaha laga guuray waxaana halkaas ku arkaya robot aan kici karin balse weli shaqaynaya robotku waxa uu Joel ka codsanayaa inta uusan charger ka dhamaanin inuu dibadda geeyo waxaana uu sheegayaa inuusan cirka arkin in muddo ah Joelna waxa uu aqbalayaa codsigiisa isagoo banaanka u soo bixinaya halkaas Joel iyo robotku waa ay ku sheekaysanayaan kadibna Joel waxa uu ka dalbanayaa robotka in haddii uu awoodo uu tuso sawiraanta waalidiintiis ugu dambeyntii Joel waxa uu arkayaa waalidiintiis markii u dambeysana waxa uu tusaya gacalisidiisa Amy Joelna markuu arko waxa uu iska ooynaya isagoo soo xasuusanaya dhacdooyinkii murugada lahaa ee ku dhacay intaas kadib robotki waxa ka dhamaanaya chargerka halkaas ayuuna ku dhacaya dhan kale Joel markuu aroortii soo kaco waxa uu ka naxayaa makhluuq hortaankaas oo ku jira dhulka hoostiisa kaasoo isla markiiba weerar ku soo qaaday Joel ayagoo sugaya intuu ka baxayo laakiinse waxaan ogaanaynaa inuusan bixin iyaguna waxa ay kaga dhuumanayaan geed hoostiisa Joel marka uu dhaqdhaqaaq sameeyana waxa soo weeraray xasharaadkii isla markiina Joel waxa uu soo gabagabeynaya noloshiisa isagoo bam u dhigaya Joelna waxa uu ku dhacayaa biyaha dhexdiisa waxaana is arkayaa in ay ku dhegdhegan yihiin xasharaad yar kuwaas oo qaniinyo sun ah wata Joel intii uu ku jiray safarkiisa waxa uu si lama filaan ah u dareemayaa wareer waxaana ku dhacayaa dhulka intaas kadib Joel waxa uu soo kacaya isagoo isku dayay inuu daawo dheeraad isticmaalo laakiinse waxa uu ogaanayaa inaysu sii socon karin intaas kadibna in ka badan waxa uuna isagoo wareersan dhulkaas ka fadhiisanaya halkaas ayuuna ku arkaya gacalisidiisa Amy oo soo kor istaagaysa isaguna waa rumaysan weynaya kadibna waxa uu isku dayaa inuu istaago laakiinse hal mar ayuu taagnida ka dhacaya waxaana is arkaya isagoo ku jira kolonyada ay ku noolid gacalisidiisa Amy waxaan arkaynaa inay ku wada faraxsan inay mar kale wada kulmaan labadoodu kolonyada ay ku nooshahay Amy-na waxa ka taxadirta iyada dhammaan dadka dhan iyada ayaa ka taxadirta maadaama ay iyada ugu yar tahay sidoo kale waxaan ogaanaynaa kolonyada ay Amy ku nooshahay inay tahay mid ammaan ah taasoo ay bahaladu ay soo weerarin ama aysan ka jirin wax dhib ah Joel waxa la barayaa kabtanka markabka waxa uu u sheegayaa in ay goobta ka kaxayn doonaan mar dhow waxa uu habeennimadii Joel iyo Amy iyo kabtanka iyo dadka intooda kaleba waxa ay isugu imaanayaan xeebta si ay waqtigooda u qaataan kadibna Joel waxa uu ka soo tagayaa xeebta marka uu imaado qolkiisa imaadana waxa uu arkayaa qariirada uu watay taas ay fariimo saaxiibtinimo u qoran yihiin ay u direen asxaabtiisu iyagoo u sheegay inay xiisan sidoo kale ay jecel yihiin isaguna waxa uu arkayaa midhihii sunta ahaa kuwaas oo ku sawiran buugga waxa uu arkayaa in dadka loogu daray cabitaanka waxa uu sheegayaa Amy iyaduna waa istiqaansaneed oo ma fahmayso hadalkiisa dhammaan dadkiina waa ay suuxayaan sababtoo ah jirkooda waxa soo gaadhay suntii waxayna is arkayaan ayagoo ku xidhan gacmaha dhammaan waxaana halkaas ku xirxiray kabtankii iskaga dhigayay inuu caawinayo waxa uuna ka qaadanaya wax yaraa ee cuntada iyo cabitaanka ee ahaa ee ay haysteen waxa uuna ku soo fasaxayaa makhluuq aad u weyn kaasoo isagu maamulayo uuna ku dhajinayo korontada calashan si adoon ahaan oo kale ayuu haystaa dhammaan dadkiina waxay ka kala cararayaan goobta Amy iyo Joelna waxa ay la dagaalamayaan kabtankii iyo raggiisa intaas kadib intuu dagaalku socdayna waxaan arkaynaa in Joel uu soo dhaqaaqay dhanka makhluuqa halkaasna waxa ku qabsanaya makhluuqa isagoo dhulka ku jiidaya isagoona u jiidaya dhankaas iyo badda kadib waxaan arkaynaa makhluuq in uusan socon karin inuusan u socon inuu dhibaateeyo qofna oo isagu yahay dhibane waxa uuna Joel arkayaa silsilad ku xiran waxaana isla markiiba ka furfuraya silsilada korontada aheyd isagoo halkaas ku xoreynaya dhammaan dadkuna waxay ka daawanayaan xeebta ficilkaas ayagoo faraxsan filimkeenuna halkaas ayuu ku soo dhamaanaya waad ku mahadsantahay daawashadaada sidaas iyo nabadgelyo